بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka baranno weydiimahan kala ah what is a currency appreciation and what is a currency depreciation. haddaan ku hormarno currency appreciation waxaan ku qeexi karnaa sare u kaca qiimaha lagu sarrifayo lacag marka loo fiiriyo lacag kale. tusaale, sarrifka shilin Soomaaliga sare ayuu u kacay marka loo fiiriyo dollarka. haddaba si aan u fahanno qeexidan aan isla aragno tusaalahan, sida aan ognahay badi wadanka waxaan ku isticmaalnaa dollar oo waxaa lagu jimeeyaa sarrifka shilin Soomaaliga. marka aan dhahno halkii dollar waxaa lagu sarrifi jiray 25,000 balse hadda waxaa lagu sarrifayaa 20,000 oo qofkii raba inuu helo $1 hadda waxa uu bixinayaa 20,000 ama lacag ka yar lacagtii hore ee ahayd 25,000 oo waxa u dhaxeeya farqi dhan 5,000. haddaba waxaa loo akhrinayaa lacagtii shilin Soomaaliga ahayd qiimo ayay yeelatay marka loo fiiriyo dollarka. midaasna ayaa loo yaqaanaa currency appreciation. sare u kaca qiimaha lacagta ama currency appreciation waxaa keena waxa ay ka mid yihiin kuwa hoos ku qoran sida baahida loo qabo lacagta sida shilin Soomaaliga inay sare u kacdo. sidoo kale waxaa ka mid ah in dulsaarka deymanka sare u kaco oo ay dadku door bidaan in lacagtooda ay kaydsadaan, midaas oo keenaysa in lacagta suuqa ku wareegaysa ay yaraato. sidoo kale inay dowladdu lacag ka daynsato bangiyada iyo maalgashatada. duruufaha ku dhali inay dowladdu ay lacag daynsato waxaa ka mid ah in dowladdu ay ku jirto deficit ama qarashaadkeedii oo ka batay dakhligeedii, ama waxa u keeni kara in wadanka uu ka jiro sicir barar xoogan oo ay dowladdu rabto in lacagta suuqa ku wareegaysa ay yaraato. si loo xakameeyo sicir bararkaas ayay u qaadanaysaa dayn si looga aruuriyo shilin Soomaaliga ku wareegaya suuqa. markana aan u soo laabanno inaan qeexno qaybta labaad oo ah currency depreciation, midaas oo liddi ama cagsi ku ah midii aan hadda ka soo hadalnay ee ahayd currency appreciation. haddaba currency depreciation waxaan ku qeexi karnaa hoosu dhaca qiimaha lagu sarrifayo lacag marka loo fiiriyo lacag kale. tusaale, sarrifka shilin Soomaaliga ayaa hoos u dhacay marka loo fiiriyo dollarka. haddaba si aan u fahanno qeexidan aan isla aragno tusaalahan, haddii aan dhahno halkii dollar waxaa lagu sarrifayay 25,000 hadda waxaa lagu sarrifayaa 35,000 oo qofkii raba inuu helo $1 hadda waxa uu bixinayaa 10,000 oo shilin Soomaaliya oo dheeraad ah halkii markii hore laga bixinayay 25,000. haddaba waxaa loo akhrinayaa lacagtii shilin Soomaaliga ahayd qiimaheedii hoos ayuu aaday marka loo fiiriyo dollarka. hoosu dhaca qiimaha lacagta ama currency depreciation waxaa keena walxa kala duwan oo ay ka mid yihiin dhaqaalihii ama siyaasadii wadanka oo aan xasiloonayn, dulsaarkii oo hoos loo dhigay si dadka iyo shirkadaha awood loogu siiyo inay lacag daynsadaan, midaas oo keenaysa in lacagta suuqa ku wareegaysa ay sare aado. markana aan isla aragno sideebay u saamaysaa hoosu dhaca qiimaha lacagta dadweynaha ku nool wadanka. haddaba waxaa ka mid ah saamaynta ay ku yeelato awoodda iibsiga oo hoos u dhacda, khaasatan sida wadankeena oo kale, waayo badi waxaan ku tiirsannahay badeecadaha dibadda laga keeno, oo haddii shilin Soomaaliga uu noo yahay lacagta aan wax waliba ku qiimeyno, lacagteenna wax badan ma goynayso, waayo alaabtii qaali ayay ku imaanaysaa, lacagteennina qiimo badan ma lahan. saamaynta kale waxaa ka mid ah haddii aan rabno inaan safarno, qarashka ku baxaya safarkaas waxa uu ka badanayaa lacagtii aan awal bixin jirnay marka lacagteena ay lahayd qiimo. haddaba ogow, marka la joogo currency appreciation, saamayntii aan hadda soo sheegnay waxa ay noqonaysaa liddi ama cagsi, waayo lacagteennii qiimo ayay leedahay oo wax badan ayay inoo goynaysaa, khaasatan marka alaabta aan dibadda ka keenayno. sidoo kale marka aan safrayno lacag yar ayaa ku baxaysa qiimaha safarkaas. xog dheeraada oo ku saabsan foreign exchange market fadlan ka dhegayso lifaaqyada hoose oo aan hadda koor kaga soo hadalnay. mahadsanidin, waa inoo mar kale haddii Rabbi idmo.